إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الأعزاء waxaynu gudu jirnaa muxaadarooyinkii aan uga hadlaynay masaa'il ku saabsan soonka ama ciwaankeeda u ahaa masaa'ilu ramadaaniya. muxaadarada midii ka horeysay waxaan ku soo sheegnay mas'alo ku saabsaneeday soonka oo la qeexo iyo ma la dhihi karaa ramadaan oo keliya iyadoo ay bil ay la soconin oo aan la dhihinin shahr ramadaana. waxaanu soo sheegnay ilaa laba mas'alo in arrintaasi ku jirto. midda koowaad waxay aheeday soonka oo la qeexo oo waxaan soo niri soonka luqadda carabiga waxaa la yiraahdaa al-imsaak, in la afhaysto oo afka waxba laga isticmaalin, hadal hadduu ahaan lahaa iyo wax kalaba. sharcina waxaa loo yaqaanaa soonka in laga afhaysto waxyaabo gaar ah, waqti gaaran la afhaysto, shuruudo gaaran loo afhaysto. intaa ayaan hore u soo sheegnay. waxaa kaloon soo sheegnay mas'alada labaad ee aheeday ma la dhihi karaa bisha ramadaan iyadoo aan lagu daraynin lafdiga shahr, haddii aan loo idaafeen lafdu shahr ma la dhihi karaa ramadaan oo keliya. masaladaasi culimadu maxay ka dhaheen? saan horeba usoo sheegnay walaalayaal, mas'alo kasta oo ku saabsan ramadaanka markii aan sheegayno waxaan sheegi doonaa culummada waxay ka yidhaahdeen oo iyo sida iskugu khilaafeen iyo qolo kasta waxay daliilsadeen. ugu dambaynna waxaan soo qaadan doonaa oon sheegaynaa qowlka aan isleenahay asiga ayaa ugu raajaxsan. masaladan ah ramadaan keligii ma la dhihi karaa iyadoo aan lagu darin shahru, oo shahru ramadaana aan la dhihin ramadaanu keliya ma la dhihi karaa? culimmadu waa isku khilaafeen, ilaa 3 qowl ayaynu iskugu khilaafeen. qowlka koowaad wuxuu leeyahay waxaa la nacaa in la yidhaahda ramadaan iyadoo aan bishi lagu daraynin oo aan la dhihinin shahru ramadaan aan la dhihinin. qowlkaas wuxuu leeyahay marka waxaa isku mid ah in yacni maaragtay wax tusinaya ramadaan in laga wado bisha ramadaan iyo waxaan tusin in laga helay isku mid waa uu leeyahay. sida haddii la yiraahdo sumna ramadaana iyo haddii la yiraahdo jaa ramadaan isku mid wuu leeyahay buu leeyahay. waana qowl xanafiyada qaarkood ay qabaan iyo qowl maalikiyada agtooda ahaaday iyo wej xanaabilada ay qabaan weeyaan. waxay leeyihiin xanafiyada qaarkood ma wanaagsana in la yiraahdo ramadaan oo keliya iyadoo aan shahri lagu darinin oo aan la dhihinin shahru ramadaana. xanafiyada qaarkood qabaan niri waana qowl maalikiyada agtooda ahaaday iyo wej xanaabila agtooda ahaaday. waxayna xujaysanayaan lafdiga ramadaan waxay yidhaahdeen waa ismun min asmaa'illahi tacaala, waa magacyada ilaahay ka mid ah. xadiiskii abu hureyre uu warinayay ayaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi buu yidhi laa taquuluu ramadaana fa ina ramadaana ismun min asmaa'illaah walaakin quuluu shahra ramadaana. hadhihina ramadaan maxaa yeele ramadaan waa magacyada alla ka mid ah, hase ahaatee waxaad dhahdaan shahru ramadaan. xadiiska asaga ana waa xadiis daciif ah. waxaa kaloo yidhaahdeen waxaa qur-aanku ku soo arooray ramadaan oo ku qeydan ashahru. ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi shahru ramadaana, bisha ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aanu, ee dhexdeeda la soo dejiyey qur-aanka. qolooyinkaas marka waxay ka jawaabeen oo isku dayayaan axaadiis oo sheegaya lafdiga ramadaan oo keliya ee aan shahri ku daraynin. waxay yidhaahdeen ruwaadda axaadiista warinaya qaar ka mid ah ayaa arrintaasi sameeyey, ma aha bay yidhaahdeen ramadaan in la yidhahda keliya ma ahan. qowlka koowaad marka wuxuu leeyahay bisha ramadaan keliya lama dhihi kara, waa in la yidhahdaa shahru ramadaana. qowlka labaad wuxuu leeyahay haddii aad jirto qariina ama waxyaabo tusinayo oo u leexinaya haddii la yidhaahda ramadaan keliya in laga wado bisha ramadaan, arrintaa lama ka hada bay yidhaahdeen. sida in la yidhaahda sumnaa ramadaana, ramadaankii baan soonnay, qumnaa ramadaana, ramadaankii baan istaagnay salaatulil u istaagnay, ramadaanu afdalul ashhuri, ramadaan waa bilaha midka ugu fadli badan. sidaa haddii la yidhaahdo lama kahsani bay yidhahdeen lafdu ramadaan maadaama qariina tusinaysa la helay. hadalkaasina waxaa qaba jamaaca oo fara badan oo shaaficiyada ka tirsan iyo xanaabilada qaar ka mid ah iyo maalikiyada qaar ka mid ah. waxay leeyihiin maalikiyada qaar ka mid ah iyo xanaabilada qaar ka mid ah iyo shaaficiyada jamaaca badan oo ka tirsan
waxaa bannaan in la yidhaahdo ramadaan waa haddii la helo qariina tusinayso in laga wado bisha ramadaan sida idoo la yidhaahdo sumnaa ramadaan qumnaa ramadaan iyo ramadaanu afdalul ashhur laakiin ma bannaana bere in la yidhaahdo jaa'a ramadaanu dakhala ramadaanu uxibu ramadaana waxyaabaha in la yidhahdo ma bannaana bay yidhahdeen waxayna xujaysanayaan xadiiskii hore u soo sheegnay xadiiskii abu hurayra ee tilmaamayay ramadaan inuu yahay ismu min asmaa'illahi tacaala waxaan hore u soo sheegnay xadiiska asaga inuu daciif yahay qowl saddexaad ayaa wuxuu leeyahay lama kahda ramadaan in la yidhaahdo ramadaan waa la dhihi karaa iyadoo ayna la socon wax qariino ah qariina ha wato ama yuunu wadanin ramadaan waa la dhihi karaa waana qowlul jumhuur min alculamaa culamo badan oo ka tirsan jumhuurta ayaa saasina qaba waxayna xujaysan oo ay leeyihiin in la kahda ramadaan daliil ku sugnaada ma jiro daliil sharci ah oo dhahaya ramadaan keliya lama dhihi karo lama hayo bay yidhaahdeen maadaama uusan daliil sugan uusan jirin oo tusinaya ama dhahayo ramadaan keliya lama dhihi karo waxaa asal ah ramadaan keliya in la yidhaahdo wayna bannaan tahay bilaa karaaha bay yidhaahdeen xadiiskan ay qolooyinka holo dilisan maba ansixin bay dhaheen bal waxaa sugan bay yidhaahdeen axaadiis fara badan oo ku soo arooray saxiixinka iyo keyrkooda waa bukhaari muslim iyo keyrkooda oo magacaabaya ramadaan iyadoo aan la idaafaynin oon la dhihina shahr ramadaana waxaa ka mid ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi idaa jaa'a ramadaanu futixat abwaabu ljanna wagulliqat abwaabu nnaar wa fii lafdin idaa dakhala ramadaan rasuulku wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam idaa jaa'a ramadaanu ramadaan hadduu yimaado futixat abwaabu ljannati jannada albaabadeeda baa la furayaa wagulliqat abwaabu nnaari naarta albaabadana waa la xirayaa lafdi kalena wuxuu ahaa idaa dakhala ramadaanu ramadaanka markuu soo galo xadiiskana waa saxiixu bukhaari muslim ayaa soo saaray marka ramadaan keliya buu nabigu yidhi calayhi salatu wasalaam idaa jaa ramadaanu buu yidhi ama idaa dakhala ramadaanu buu yidhi xadiiska waxaa laga fahmaya bay yidhaahdeen ramadaan keliya in la dhihi karo iyadoo aan shahri lagu daraynin aqwaasha ku jirta ramadaan keliya ma la dhihi karaa mase ma la dhahayo markii aan fiirino aqwaasha culummadu waxaa ugu raajaxsan qowlka dhahayo ramadaan waa la dhihi karaa karaahiyana ma ahan sidaan hore usoo sheegnin waxa weeyaan waa madhabuljumhuur jumhuurta si ay qabaan qayb kale baan gudbaynaa oo ah man yajibu calayhi sawmu ramadaan waman laa yajibu calayhi sawmu yuu ku waajibayaa bisha ramadaan inuu soomo yuuna ku waajibayn bisha ramadaan inuu soomo yani laba qayb weeyaan qaybtan iyada ah qayb waxa weeyaan horta soonka yuu ku waajibahayaa qayb labaad waxa weeyaan soonka yuuna ku waajibaynin arrintaasna waxaa ku sugan ilaa 4 mas'alo mas'alada koowaad waxa weeyaan xukmu siyaami ramadaan ramadaanka oo la soomay xukunkeeda muxuu yahay ma waajiba ma sunnaa xukunka ramadaanka in la sooma muxuu noqonayaa ramadaanka oo la sooma walaalayaal waajib weeyaan qof kasta oo muslim buu ku waajib yahay oo qaangaar ah oo wax garanaya oo muqiim ah oo aan safar ku jirin oo caafimaad qaba lab iyo dhidig wuxuu doonaba ha noqdee markii laga reebo haweeneydo dhiiga uu joogo ama umasha ku jirto arinta iyadana waa ijmaacul muslimiin muslimiinta si ku ijmaacsan yihiin oo heshiis ku yihiin weeyaan maxay ramadaanka waxa weeyaan rugnun min arkaanil islaam tiirarka islaamka ee shanta ah mid ka mid ah weeyaan xukunka ramadaanka oo la soomo marka wuxuu noqonayaa waajib qof kasta oo muslim ah qaangaarna ah aqlina leh muqiim oo musaafir ahaan caafimaad qaba rag iyo dumarba waa ku waajibaya markii laga reebo haweenka dawladu shariica ama dhiigu u joogo ama umasha ku jiro arinta iyadana waa ijmaacul muslimiin inuu soonku waajib yahay qof kasta oo muslim ah oo qaangaar ah oo caaqil ah inuu ku waajibayna waxa tusinaya qowlka Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu yiri jalla jalaaluhu يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلهي وحول الله جل في علاه ضدك مؤمنين أو الله رسولك سرمي كو إيمانك لغيه ليو وحال الذي كواجب يلي بشهر رمضان إنا الصونتان إلهي سبحانه وتعالى أكيري فمن شهد منكم الشهر فلينصمه بشهر رمضان قفكي قارايا حصوما سوى كلا صونك إنه واجب وحاتو السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث فربنا أي أرنتان كسو أروري وحانا كميدا حديثك عبد الله بن عمر تعالى عنهما رسولك عليه الصلاة والسلام وحوري بني الإسلام على 5 وحاشنت كميدا مركة صوم رمضان كل الصوم رمضان كل الصوم مركة وحويا وواجب
mas'alada labaad oo arinta ku sugan walaalayaal waxa weeyaan siyaamul majnuun qofka waalan sidoo u soomahaya ama soonkiisa muxuu noqonayaa qofka waalan inta uu waalan yahay inuu soomo waajib kuma ahan arintaasina waxa tusinay ijmaaca waxaana u dilay xadiiskii ahaa rufi'a alqalamu an thalatha qalinka waxa laga kor yeelay 3 anin naa'imi hatta yastayqid qofka hurdahaya ila uu ka soo kacayo waxba ku muwaajibayaan wa anis sabiy hatta yahtalima anugi yara ila uu ka qaangaarin wax ku waajiba ma jiro wa anil majnuun hatta yaqil qofka waalan qalinka waa laga kor yeelay ila uu wax ka garanayo wax ka fahmaya xadiiskana waa xadiis saxiixa weeyaan imaam ahmed iyo abi daawud iyo ibn maajah iyo qeyrkooda ayaa soo saaray sababtoo waxa la leeyahay qofka majnuunka oo waalan in lala hadlaaba ehel uma ahan oo ma fahmi kara waxa lagu la hadlahayo toojiyaha iyo waxyaabaha loo sheegaya maba garanaya maxaa yeelay aqligiisa ayaaba tagayba mas'alada saddexaad arinta ku sugan walaal waxa weeyaan siyaamul kaafiri qofka gaalka soonkiisa muxuu noqonayaa qofka gaalka inuu soomo waajib kuma ahan inta uu gaal yahay waana ijmaacul culama arinta way ku ijmaacsan yihiin sababta waxa la leeyahay soonka waa cibaado shuruudda soonkana waxa kamid ah al-islaam san hore u soo sheegnay inuu qofka muslim yahay sida salaada oo kala marka qof aanba muslim ahayn aan tawxiidka qirin inuu yiraahdo waan soomaya soonka asaga ka ansixi maayo mas'ala afraad arinta ku jirto walaal waxa weeyaan siyaamu sabiy wa sabiyati anuga yar iyo gabadha yar soonkooda muxuu noqonaa xukunkiisa laba qayb ayaa loo kala qaadayaa mas'alada ku saabsan anuga yar ama gabadha yar soonka ay soomayaan qaybta koowaad waxa weeyaan waajib may ku tahay ramadaanka inay soomaan dadka caruurta ah ilmaha yar yar ee wali aan qaan gaarin wiilal iyo gabdho say u yihiinba inay soomaan waajib may ku tahay arintaas iyada culimadu isu khilaafeen hasaatay khilaafkooda waa fudud yahay qaar culimada kamid waxay leeyihiin anuga haduu gaaro 10 sano ee uu awoodo inuu soomo oo la dhigi kara soonku waa soonku uu kara qofka asaga ah waxa weeyaan inuu soomo ku waajibay bay yiraahdeen hadii cudur daar la'aan oo soonka uga tagana wuu dambaabaya culimada qaar waxay leeyihiin marka anuga yar ee 10 sano jirka ah gabadh iyo wiil wuxuu doono ha noqdo hadii uu ba kara inuu soomo waajib bay ku tahay cudur daar la'aan haduu uga tagana waxa weeyaan waa dambaabaya arintaas waxaan waa riwaayad ma ahmed laga wariyay iyo qowl xanaabida qaarkood ay qabaan waxayna xujeysanoo daliil ay ka dhiganayaan qiyaaska oo waxay ugu qiyaasanayaan ala salaad bay ugu qiyaasanayaan oo waxay xanaabilada u arkaan in ay salaada waajib ku tahay anuga yar oo wali qaan gaarin hadii mar uu 10 sano gaaro soo kalena waxa la mid ah soonka bay yiraahdeen oo 10 sano haduu gaaro anuga yar inuu soomo waajib ay ku tahay waa hadii uu kara weeyaan culimada qaarna waxay yiraahdeen qofkii awoodo ayay soonku ku waajibaysaa iyadoo xad loo sameeynin qolkan wuxuu leeyahay qofka awoodo soonka ayuu ku waajibayaa laakiin la dhihi maayo 10 sano iyo inta ka badan inta ka yar la dhihi maayo inuu awoodo ba shardi ah haduusan qofka qaan gaarin waan riwaayad kale Ahmed laga wariyay iyo xanaabada qaarkood ay qabaan iyo sheekh Lida ibn Majishun oo maalikida ka tirsan ayaa saasi qaba waxayna daliilsadeen xadiiskii nabiga kaleey salaam ee ahaa إذا صام الغلام 3 أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان هدو صوم عنوغي 3 maalmood oo israac raacdo waa haduu karo macnaha 3 maalmood oo xiriir inuu soomo haduu karaay bisha Ramadaan inuu soomo ayaa ku waajibaya xadiiskaasina waa dhaif jiddan oo aad buu dhaif u yahay xujana ma galabay leeyahay waxaana soo saaray Abdurrasaaq fi musannafihi culimada qaarna waxay leeyihiin ilmaha yar yar soon kuma waajibin ilaa ay ka qaangaarayaan qowlkaasina waxa qaba jumhuurul ulama waana madhab cinda al-hanabila waxayna daliilsanay xadiiskii hore oo soo sheegnay ahaa rufi'a al-qalamu an 3 qalinka baa la kor yeelay macnaha waxa lagu muwaajibin weeyaan waxa kamid ah as-sabiy hatta yahtalima anugi yara ila uu ka qaangaarayo qowlka raajix ee mas'alada ku jira walaalayaal waxa weeyaan in la yiraahdo waa qowlka jumhuur ulama ay qabaan oo dhahayo ila ilmaha ay ka qaangaaraan wax ku waajibaya ma jirto waana soo tusinaya xadiiskii hadda aan soo sheegnay mas'aladan amarka ilmaha yar gabdhaha iyo wiilashaba soonkooda muxuu noqonayaa laba qayb aan kala saarnay qaybta hore waxay aheeday mawaajib ay ku tahay inay ramadaanka soomaan ilmaha yar yar wixii culimadu ka yiraahdeen arinta idan waan aragnay qaybta labaadna dabcan waxay noqonaysaa waligi ilmaha mas'uulka ka ahaa mawaajib ay ku tahay
ilmaha yaryar inuu farasoon oo ku garaaco hadduu soonka ka tago insha allahu tacaala muxaramada xigto ay arrintaasi ku arki doonaa hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh